الرحمن الرحيم marka hore waxaan mahadcelin u gudbinayaa bahda saxaafadda hadda halkan aan isla joogno fursaddan asiiseen ayaan iga mahadcelinayaa marka labaad waxaan mahadcelin u samaynayaa aan u gudbinayaa macadka heritage oo runtii waxyaalo qiimi leh ama wax ku ool ah u gudbiya una ururiya Soomaalida geeska ama geeskan Afrika oo dhan runtii waxa ku kulma waa labeenta ummadda Soomaaliyeed aqoon-yahankeeda yaa ku kulma waa labeentaas oo xafuujisa madaxeeda iyada oo fikiraysa ama isa saartay xilka ah in ay ummadda ay u fikirto una gudbiso hadba waxa u dana ee danteeda ku jirto runtii heritage waa sanadkii shanaad hadda fadhigeedani 4 sano ayaa halkan ka qabsoomay 4 sanoba waan ka qayb galnay panelist ahaan oo aan jiidiyaal ahaan kaga qayb galno iyo Dahabshiil Group oo aan kaga qayb galnaba Dahabshiil Group runtii subject-kan maanta laga hadlayay tribalism-ka isku dhaca iyo waxa uu ka keeni karo geedka Afrika waxa ka horeeyay integration-kii laga dhaxgalkii dhaqaalaha iyo dhaqanka ee ka horeeyay ay heritage halkan ku qabatay labaduba waa laba topic ama mawduuc oo aad iyo aad ka shaqeynaya dhinaca dhaqaalaha iyo maaragtay isku xidhka taasi iyadana wayna danaynaysaa wayna taabanaysaa sidaa darteedna indho gaar ayaan anaguna ku haynaa hadday tahay integration iyo hadday tahay tribalism-ka maanta laga hadlayo waanaad ku mahadsantihiin dhammaantiin